waxa aad u jeclaa shacabka dalkiisa iyo dadka u badan dabaqada hoose kadib markuu geeriyooday waxaa fatahayay mowjado banaanbaxyaha kuwaasoo ay kicinayaan mucaaradku. Ninkaas aynu hadal haynana waa Hugo Chavez oo 13 sano madaxweyne ka ah dalka Venezuela. Muuqaalkeenan gaaban waxaynu ku qarjoogsan doonaa taariikh kooban oo ku saabsan Hugo Chavez. Hugo Chavez wuxuu dhashay 28 Luulyo 1952. Wuxuu ahaa nin askari ah goor dambana u diga rogtay siyaasi madaxweyne ka ahaa dalka Venezuela ilaa taariikhdu markay ahayd 2 Febraayo 1999 ilaa 2013. Xukuumadda Chavez waxay ahayd anti wadaag wuxuuna ku caanbaxay baaqa ama yeedhmada uu hadh iyo habeen ku baaqi jiray in la mideeyo siyaasadda Ameerikada Koonfureed. ninkan aad ayuu necbaa siyaasadda Mareykanka iyo dalalka ay saaxiibka yihiin. Hugo Chavez wuxuu ahaa nin military ah wuxuuna taariikh aad u dheer la lahaa ciidamadiisa. Waxa uu isku dayay inqilaab sanadkii 1992 inqilaabkaas oo ka fashilmay. Isla markaas Chavez waxaa loo taxaabay jeelka waxaana jeelka laga soo daayay 1994. Isla markaas waxa uu aasaasay dhaqdhaqaaqii ugu magac daray Jamhuuriyaddii Shanaad. Waxa uu ahaa dhaqdhaqaaq dhinaca bidix u janjeera oo sheeganayay inuu ku hadlo magaca dadka faqiirka. Ugu dambeyn waxaa loo doortay madaxweyne sanadkii 1999. Waxa uu noqday madaxweynihii 53aad ee ay yeelato Jamhuuriyadda Venezuela. Waxaa lagu doortay kadib markii uu dadka faqiirka u ballan qaaday inuu noloshooda wax ka qaban doono. Sidoo kale waxaa la doortay dhowr mar oo kale. haddii aynu eegno shacbiyadiisa waxa ay ahayd mid aad u ballaaran oo waxaa taageeri jiray dadka faqiirka ah u badan waddankaas. Waxaa kale oo uu saaxiibo iyo taageerayaalba ku lahaa caalamka. wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel dadka faqiirka waxna u qabtay. wuxuu ahaa hanti wadaag aad u hufan oo jecel inuu kaga dhabeeyo waxa uu afka ka yidhaahdo. waxaa dhacday in mar la inqilaabay 2002 taasoo dhammaan dadkii faqiirka ay soo dhoobeen shaariciyada iyo wadooyinka waaweyn iyagoo leh hana loo soo celiyo madaxweynahanagii dhabta ahaa. Hugo Chavez waxaa kale oo uu taageeri jiray arrinta Falastiin isagoo u aqoonsaday dowladnimadeeda. Chavez waxa uu soo eriyay safiirkii Yahuudda u fadhiyay Caracas caasimadda dalkaas kadib markay Yahuuddu weerar baabi'ina ku qaadeen Gaza bilowgii 2009. Qoraahiye iyo kelmado lagu xasuusto Hugo Chavez. halkan waxaa ka horeysa oo kun qudhuntay. hadalkaas waxa uu yidhi kadib markii uu ka khudbadeynayay meel wax yar ka hor Bush ka hadlay. sidoo kale mar uu qaramada midoobay ka hadlayay waxaa laga hayaa waxoogaa ka hor shaydaankii ayaa halkan joogay isagoo madaxweyne Bushkii Mareykanka ku tilmaamay inuu yahay shaydaan. madaxweyne Chavez waxaa aad looga jeclaa meelo badan oo caalamka gaar ahaan dowladihii kacaanka nidaamkooda ku salaysnaa. waxa uu saaxiib la ahaa hogaamiyayaal badan oo caalamka caanka ah sida hogaamiyihii laqmaday ee dalka Liibiya Muammar al-Gaddafi iyo madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Allah u naxariistay Saddam Hussein iyo waliba madaxweynihii dalka Cuba Fidel Castro. ugu dambeyntiina Hugo Chavez wuxuu u geeriyooday 2013 cudurka kansarka kaasoo in muddo la tacaalay. Hugo Chavez intaas ayay noogu egtahay maanta. fadlan wixii macluumaad ee dheeriyeed hayso ama taliya tusaalaha noogu reeb qaybta commentiga. Amaan Allah.